Some people were telling me that if I wanted to die, then I should come here. And the impression I had before coming was that it was complete chaos. I thought I'd get kidnapped at the airport, and I thought I'd see pirates. It feels like no man's land. You always feel gridlocked because, you know, you just want to walk in a straight line and not know where you'll end up. But here it's always clear where you'll end up. Psychologically, it can be tough. kadib waxaa bilowday civil warka ayaa 90-gii bilowday dagaaladii sokeeyay oo dawladii lagu ridayay gacanka lagu riday ayaa bilaabay waxaa timid mujaaca fara badan baahi fara badan amni darro taas ay caalamku markii loo gudbiyay oo adkaysan waayay caalamku markaa waxay go'aansadeen inay intervention ku soo sameeyaan xaaladda Soomaaliya laakiin nasiib darrada waxay tahay dadka Soomaaliyeed lama oga waxa ay rabaan aniga fikir ahaantayda dadka hadlo dadka oo xalana xunul dad oo ayagana anaga naga baqay waay anaga dad anaga ka baqayna waay maadaama dad oo bulshada ku soo biiri kar maahan dad oo waxay yihiin anaga aan aaminsaneyn waay ayaga Soomaali ahaan kor way naga aaminsan yihiin balse waxay yihiin anaga ma naqaano anaga Soomaali baan nahay waxa jirta waxa burburay anaga naga burbureen waxaan sheegi karnaa diista markaan uu yaraan waxa burburay sida loo kabayo waxa naga burburay sida loo kabayo oo ugu hagaagsan sheegi I imagine it to be very busy and sort of vibrant, and I imagine there to be old Ottoman houses that are crumbling and people just going about their business. I'm sure it's a really far more vibrant than where we're staying, which feels more like a prison in a way. ها marka hore dadka yani waxa la aaminsanaa jiray gabar basketball dhashay caadi ay tahay way fiicnaa admiga sidaan hanjabaadan dhibaatadan rafaadkan cabsidan badan ma aysan jirin oo hadda gabar yani soo shar wadata in laga aaminsan sida dhaqanka yani dhaqamada Yurub oo kale ay aaminsan yihiin in naagtaas ay ahayn qof Islaam ah hadda waxa la aaminsan inta badan in aan ka arki jirnay dadka hore noo fiirsan jiray maanta in laga aaminsan inaan gaalo aan nahay أنا كنا سبسا كنا لهاي دورما يعني وقت جينا أو دما دونا وقت إنه دمانا أو بقى وأمسنا دبعت هذا تعالوا حتى وقت السوق كلي إن أنا هذا حلنا ماشي يعني هذا أنا صديق روا قرح له وطن كاتالي ومال جودة آد معانا جروب قرحان وحوله بنا هذه أمان كامل سنتين القرعيان أمانك وقرحنا نلصق هدي عشان أكون إحنا ولاد أنا كنا ولاد عمري أنك ستكون جعلها حتى بس كده أنكون حبيبي الوجع I don't like the idea of setting myself apart personally from the local community and traveling in visibly armored vehicles. I know it's necessary from a security point of view, but I personally don't like doing that because it creates such a gap between me and just the locals, and I think it breaks trust. But the UN's a target, you know, and the people running this mission are working on a very political issue, so they know that they could be attacked. والله كل وقتها وكلسون درنا ما يشوي سكجست وعدتك وصوماليدا سنة كم دنبي أد باللغة عبس قبا نك حوجا غير دير السنة كم مقطوعة من السلية وعدتك وولدين كيس غير حسكا
xaggaas iyo ilaa iyo xalan ilaa iyo jasiiro waa Amisom dadka ka soo celinayso marka jilaabeesigeena intaan uu ku badan yahay mar waxaa jirta waliba doon aniga aan leeyahay oo argagax inta aan kala kulmay oo doontii orod marka aan maagay oo doontii meesha oo isoo celshay oo banaanka inta iska saaray doontii laba gabal ay iga naqatay ayagoo aan mabaar aan leenahay oo dieselkaas iyo go'yaalkan ku jiifanay inay haysanaa wax kale oo hadda aan sidana amba armo kale aan sidana maalin min dacarbi oo yar oo hadda malayga marka shabaagta oo galo kale lagu jiro ayadoo hoos maray haddii ku arkaan ayaga soo baxayo markaas haddii ay u sii jeedana adaaba sugi karin inuu ku tumar rabana hadda qof sugaysaa jirin ba hore motorka loo sii sharraysanaa haddii makasteero mooradaheeda maalada malayga ku joogka ka lumayso maanta wuxuu ilaahay kaga saalo ka soo gaadaan isla haddii laga soo celinayo kulle dareeya waa danqanaysaa oo nin ciidiisa maanta ka sakaliyo banaanka halkaas ka tag kulle dareenkiisa shucuurtiisa heeshay gaari karto waa la dareemi karaa You're always aware that you're cut off and that there's only so much you can experience. For me, this isn't the way people should live. It's just the way in which to survive. dadka hadda meesha ku jiro oo ajaanibka hadda waddankeena u qabanayo ama u gargaarayo waxaana kula tali lahaa mataqaanaa banaanka hadda sidee uga joogaan inay uga joogaan inta amni laga helaayo sidee u gargaari karaan marka dadka waxay u gargaar karaan waa ayada nabad iyo amni la helo si kale ma soconayso laana nabadda hadii la dhaho markaan Dari bis,